raggu isoo wacay waxay dhahaan aniga gabdhaana kala hadaa heldiin wax walba ka bixideen maanta inta adduunyada taalo maxaad ka taqaanaa gabadha ugu quruxan Galmudug oo rag badan darteeda isku dagaaleen gabadha u qalantay inay tartanka quruxda badan Afrika ku matasho Soomaaliya haddaba daawade intaan u guda galina warbixinta xiisaha badan fadlan sheer muuqaalkan oo la wadaaga asxaabtaada aniga waxaan ahay gabadha ugu istaalka badan ugu quruxda badan Galmudug rag walbana way soo damcaayaan aniga waxaan ahay gabadha ugu quruxda badan Galmudug haddii aad quruxdeeda ka heshay istilkiga ka heshay waxa dhila fiideo ah nolosha shargareeyo ayaan garaad xirsi oo ku magac dheer Samaara waa gabadha ugu quruxda badan magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud oo ku suntan xarunta jacaylka iyo quruxda hablaha waxana Samaara koobka quruxda ku haratay isteelkeeda iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo rag badan cajabiyay Samaara oo aan kula kulmay Guraceel waxay ii sheegtay in rag badan ay jacayl iyo xiriir u soo bandhigteen balse ay ka diiday maadaama aysan u qalmin waqtina aysan u haynin sida iyadu ay sheegtay horta qaabka jirkeygu dhisan yahay sidoo kale face aniga fuuxan badan milay naag indhawaawina sandheer ahay afqor xoolo alxamdulillah maxay caawiyaan aniga dadku waxay dhaayeen in la kula anigana kulankeyga chance ma hayi saas waaye anigana dadka inta aragtida dad raadiyo boqolkiiba boqol aniga marka wadada ana xataa xishoodo waxa sida maxay dadkana ka soo eegayaan Samaara ayaa dadka aqoonta u leh ee la dhacay quruxdeeda u arkaan inay tahay gabadha u qalantay inay Soomaaliya ku matasho tartanka quruxda ee Mrs Africa balse aanay ka qayb galin tartankii Muqdisho sidoo kale Samaara waxay sheegtay in marka ay dhex marayso bartamaha magaalada Guraceel ragga wata baabuurta ama meheradaha kula laamiga hareerihiisa inay ku mashquulaan quruxdeeda haddaba sidee ay Samaara u aragtaa quruxdeeda maxaysa dadka kala kulanta siiba ragga waatan iyadoo ka waramaysa arimahaasi oo dhan markaas meesha dukaanka xaq soo qabsan markaan gaari kale ka digmaago rag igu mashquula ama rag gaariyaasha joojina way jiraan iyo rag xataa hooshooda ka baaqanayo oo dukaamada fadhiyaxta iska mashquulayo aniga ma aaminsani maanta gabar iga qurxoon ee Soomaaliya joogto qorbo joogto waxaan dhihi lahaa dadka qorbaha joogo waqtiga anigu la hadlo iga raali noqdaan dhihi lahaa diswaay aniga shaqooyinkayga iska badan طبعا والله أنا قرت أهانتي ده قفا وين قروح اسمنا أنا قروح ذي ونس أوجاي قيمة ونس أوجاي ده عدد واحدة ونس أوجاي الحمد لله دتك وإيش يا جسمة هنا قروح هذا مرة بصبدك رجوا إسراع وحدها أنا قبل أنا كره ده هلهن وحلب وحلب كب حدهن ما أنت الدنيا تالو رجوا حاجر أو أنا جاب أو سن يعب أو صدق أفر من سجارة ساسة أنا مع إحنا أيجا سن تعب أنا ما ده عيب محي عيب أنا dadku waxay dhaayeen in la kula anigana kulankeyga chance ma hayi saas waaye anigana dadka inta aragtida dad raadiyo gabdho way jiraan dad waxa jira gabdhaha aniga comment igu soo caaya matana qurux leh matana aniga quruxdeeda ana soo qarsan ama caaya ma caaya dikla afkaas ka daalinaan idii lahay waxaan aaminsanahay inaan quruxda Afrika maanta aan ka qaadi karo markii Galmudug laga soo tago dabcan Soomaaliya oo dhan marka hadaftan waxaan dhahay waan xanuunsaday alxamdulillah ilaahay baarta ma hadis kale waxa kaleetana mana xanuunsanay il bil aadan waaye laakiin hadaftan just wana qaba ragade qaar badan oo ay kor hadleena jiro laakiin alxamdulillah hadii ilaahay baa ma hadis kale ana hadda marka baxayo hadana adkaar aan akhrisan aniga dan habeenkii ma sii cakaro qaro aan dareema cabsi badan laakiin ana adkaarta akhrisan ama quraan akhrisan baak ma kaday karo quruxda horta ilaahay baa siiyay waxa iska keenkeen habeeraatay ma ahan jasna waan ag taaganahay qof meeka wax samsiya ma ahan kalsoona isku qabaan faanteen alxamdulillah waxaan ahay gabadha fashion ka maanta ugu shidan Galmudug kana aaminsan ahay garaan si Guraceel